mudane waxaan la yaabanahay ninka mar walba isagoo kaliya isku mashquulsan sababtana ma aqaan aniga sidaas ayaa wanaagsan inuu isku mashquulsan haddii uu aamusnaado dhibaato kale annagana dan ayaa noogu jirta inuu isku mashquulsan Studio Famproj Mogadishu ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात् हर 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 महादेव। आप विराजे गंगा तट पे नजर रखे हो हर संकट पे आप विराजे गंगा तट पे नजर रखे हो हर संकट पे जटधारी लटधारी हर पग पग साथ में डोले बम बम बोले बोले काशी हर हर गंगे बोले काशी बम बम बोले बोले काशी हर हर गंगे बोले काशी भोले बड़ा दयावान है ना मिटने लकीर दे जिद पे अगर आ जाए तो समंदर चीर दे जय शंकर बोलो जमकर ना तीसरी आंख ये खोले बम बम बोले बोले काशी हर हर गंगे बोले काशी ये होली है काशी की होली ये होली है काशी की होली ये होली है काशी की होली ये होली है काशी की होली। जय शंकर जय भोले जय जटाधारी तूने रची है ये दुनिया सारी भूत परेतन की नाचे है टोली जब खेली जाती है काशी में होली लाल गुलाल में लाल गाल पे लाली सामल डालूंगा भरी है पिचकारी केसर के पानी से भिगा दूंगा भांग पीऊंगा खूब घोट कर सबको संग पिलाऊंगा आज होली ना छूटे जो वैसा रंग लगाऊंगा। ये होली है काशी की होली ये होली है काशी की होली। थोड़ी मिला के मीठे रस में धोखे से भांग पिला दी मुझको मजा आ रहा है ये कैसी मस्ती मिला दी आया है झूम के फागुनवा भिगोए चोली मेरा बलमवा आया है झूम के फागुनवा भिगोए चोली मेरा बलमवा होली है सरारा होली है पुराना मानो है लीची होली है आया है झूम के फागुनवा भिगोए चोली मेरा बलमवा रे तेरा बलमवा रे रंग लेके गुल्लू रंग लगाए रंग तेरा बलमवा रे तेरा बलमवा। kaasi waryaa istaag waryaa iga leh kaasi ayaa laga badashay haddaad nagaari weysa gacmaha ayaan kaa jira ogow haweenkaad fudulinaysaa misana waxaad leedahay gacanta ayaan kaa goynaya adiga saaxiibada haddiid mar dambe haweenka fudulisiin qoorta idinka siiba ballan waay dani waxay kugu jirtaa dabagalka aad igu heys inaad iga dayso dabagalkan aniga waa hawshayda mana arki karo gabar masaakiino oo la dhibaataynaya haddii caafimaadkaadaa rabto isku badnaaw haweenkaa dhibin ina keena hayna maryaabal dumarka jaamacaddooda maan ka bixi karaa aniga bootab ma kashiixaysid nin adaabka ayaa banaan maxaa tiri maame wax ma ku dhihin adila umaleys aad iyo aad waa mahadsan tahay naq waryaa naq ya abo waa mahastaa lagu dhayno anaa mudan inaad dhaad ma laga rabo seewa yaa gabadh uu jawaab noo seewaadi anaa mudan maahan adigaa mudan waaye wax walba lagu dhahay horta in lagu jawaaba haboomo mid aan ku weydiiye saaxiibkaaga sidaan lemiyuu aamusan yaha mar walba dabeecadiisa saacahan ku dhekan noocaana la iska jecel yaha ka warrab البندي أنا جد البندي مر لما جد البندي أنا مرسيدي حاجب البندي عجد البندي أنا جد البندي عجد البندي
ninka haddii kuu sheegay siyaasaddaa la jecel yahay baryahan dadka dhan baa say u coday hooyeen sababtoo ah ninkan lacag fara badan bangiga ku shubtay goormee baa makusay 1,000 shilin iyo 500 markii waddanka laga mamnuuci ilaa iyo haddaan ku dhahay akoonkiisu waa sii kacooyaale ya baabri maxaa ku hadlaysaa ninkan warkiisa ha dhegaysanin isku qarxiska filimaanta talaagugu badsaday koodhe warkiisa dhan talaaguhu noqday waan ku salaam mudane kasi waxaan u baahanahay waraysi inaan kaa qaado si aan bulshada ugu soo bandhigo waraysi anigu waraysi ma gaarisay waay waraysi wax weyn ma ahan hawsha aad qabatid ayaa dadka uga sheekaynaysaa maya beledkan war laguma sheegi karo wala siraadsaha kowdha teeda kale shaqooyin fara badan ay yaala marka waraysi waxaas ma geli kara kowdha nakeen soo ful mooto ardhiiga seewa yaa qaadiga warka badan iga dhaafay qalqaalin caana noqonayaan ku dhaw qofta ku waraysato joornaalada lagu sawirad ardhiiga waxa iga tagaynaa suuqiya soo siyaa soo ful dhiig hay sug cishiya bayrala soy mar soy ke abo sidaalkan halka litra soo jibay bye ya waan ku salaama kaashi ya waa kaa qada adiga maad timid halkiisug ushaanaan dhigahaahe hoy yarka qabo waryacoon ma soco kartaa waryacoonka hawsha dhammeeya qabyaha uga tegin run ahaanta shaqadaada aad ayay culustahay sababtoo ah dadka bini'aadanka ayaad gubtaa aniga dad ma gubasay waa meydad kale waay meyd maa dad la dhahaa marka waxaan rabaa arrimo adiga ugu saabsan inaan qoraal ka sameeyo wax aniga igu saabsan amase dadka kale ka wadaa arrimo adiga kugu saabsan dad fara badan ayaa halkan jooga laakiin halkaashii ayaa horteeda taagan gurigayaa kugula noolna ha soo dhaaf dugdugyaa musbaarka iska ilaalino ha soo dhaaf waa aabbaheeyaa barisho wanaagsan awbaari maanta hanuun u soo daaday shaqada xawli ahayd baabana waa kan wiilkayga ma imaateen adigan ku sugayay hooyaday waaya aydanaya hooy laakiin walaashay aw gangaa gudaha ku jirta gangaa waay kana walaal sidee tahay walaashay gangaa waa tanaya gabadhaanna waa gabar cusub waxaa la yidhaha double impact girl magaceeda dib ay nooga sheegay waa laga yimid aan ku dhaha lagno teeda kale wariye waa gafs waxayna rabtaa dadka inay xoogaa waraysato walaal shaa soo samaynano ما شيء حوصل سمين ده شيء حوصل سمين سكوري وقت وربي كسر نور نقني وقته dhib ma lahan marka labaad ayaan shaax cabaya familkaaga aad ayaan uga helay waa dad wanaagsan run ahaantii qoyskeena waxaan ku dhahay fuul bulshaan ku dhahay walaashay ka sii darna ku dhahay walaal bal ka waram haddii aan hal sawir idinka qaado ها يا ديدا صور كان بربنا بقى أي بارس سكبة صور كنتي اللي جارن وحربها إن يسوي بحسد در عسابك يعيد على شان أبي هل جوج له بكويا اللي يد وين أنا إنك قاعد دركها كودن بي أنا تنتا موجود وقع عرض صمد عرض محيتم هاي عرض لما تيدو عيبنا ما هذا جوج ده سكر صونا ودك غيره كلمة تيجي هاي نصور واسكر صونا هاي دبلوه هي سوري تاي يا رام هاي كاشي دول عدي هاي كاشي waan sii baxay ay sawirka makeup mariya waayahay banaaris goormay u soo wareejinay xilliga diyaar ka tahay waayahay biri ka waran haddii aan wada kulanno warcad waa okay bye miraayada isku fiiroosa igarkay ha adan kula hadlooyaa maxaajar isku fiiray miraayada maxamed dukhoti ها والله ما أنت هذا ونوريسا هيدهني أنا قاعد كده أخاف كل أسكن نور ما سقواها حبة دياس وصعدان وملاها محاب وقت والبعض قشيدتها توش كان يقدر فنو أن كانوا لاذي أو بعرف فسدان فجر كيس يقفاي يا أخي هذا إنه كفامي إسكب بحر ترتيبك وحلوله يا أخي أنا قبل لين نمدي وصومريه جرائدك waxaa qoran hay'ado fara badan oo raban maalgashi inay ku sameeyaan dalkeena jaraa'idka wax ku taraa hortaada fiiri yaa way diga waa kan hal litr la sii soo shooda jeeras igu dilid yaa saaxiibkay maanta nuurusa shaati gacmo dheer noo soo qaadat intee u socota ii sheekay
luqaafo iyo lugooyo ma idinka dhammaanayso qofka shaati cutub hadduu soo gato waa daba gelaysaan soo ku soo gatay intuu ka keena lay taagantiin war xaasinimadan dhaaf yaqeen qofka wuxuu u toosi karaan waxaana isku toosi saaxiibkay maanta meelaha u socotaa waa fahansana ana maka haro iyaa ku dhahay horle ku raaci karaa iga joogan tee uu joogaa sawa adi qofaa barat annaga dhammaan ilmaamay ballanta keligay le waa adiga maaha saaxiibkay degan ku dhaqso hayaan ku hadlayn hadii maya meel aan socdo degan ku dhax ma baxaaga ku dhahay bartay maxaa ku dhahay sabta abuga xanaaqiyayga celiya bartaylayga celi jirta saaxiibkay xariisna ana igu dhamaatay laba war oo nadiif ah deelay sheeg waa qaadaha iga ciribti kale iga hor leexdo ma mooto soo abo mooto qaraab la kadib meelaha ku dhadheelay adiga koriya joog afarta xaafadod luudan ku soo wareejay ku dhow lacaga kaama raba iska deg marka meeshan ku naso saaxiibkay waa ku dan sheegtay waa yaaqay hortan sheegasho ma xariifkan galbaan ii weydii oo keelana igu fiicnaa la horta gabadha akana diinku weydii hadhow ay waaba kan oo keelo ma agteeda ka dheer kanaan baxiraha no ninka oo keelo jacsa oo halbaan qaas saaxiibkay u sameeyaa ku dhaqsi am cisigo saaxiibkay meel socda magta diyaar waa ku dhacay igu hal dan siyaasa saaxiibka ban fiican wali kan awal aakhir maxaa ku daray dhaqsano waqtigan uu socda la oo saaxiibkay waa kana waa baxday yaa ka dambe magti ana ku dhawaan shacir dhawan mar hore maxaa sameeyay bax marwa seena mi arkaysaa fiir waa waree kaashi aad iyo aad ayaad u nuuraysaa maanta marwa naga dhaaf yaaqe mar kale marwa ha igu bicin dafiina igu bac sababtoo ah labadeena saaxiibo ayaan noqona soo maahan okay abay saaxiib may rafiina dib male waa ku dhahaa hay qalad ay fahmaya sidaas ayaa wanaagsan hadda damaashaadka xageen ka bilaawna may magaaladana wada shidan ogtahay intaan ka bilaabayna intaan sheekada ka bilaabayna waa la gacan galay qeedii cuntay gadaal saarigayga wuu wasaqooba kawar adigana waa igu qoslaysaa maxaa sameeyaa hadda may soo dhaweyn waa magaaladan waa la wada hadlaysan yahay baashaan xoogaa hadday kugu xarto waxaa waaye webiga tagno kaale sabax ha u bixiya tartiib saariga kor u qaad ha ku fin isbitaalka ma dawey एक चुटकी रोजाना तुम हंसी दे जाना मुट्ठी भर कुछ सांसें पास में रख जाना बिन शर्त जो बांधे हमको वो रिश्ता तुम ले आना 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 जिस दिन तुम कुछ ख्वाब ना भेजो नींद मेरी चिढ़ जाती है जब भी तुम सांसें भेजते हो उम्र मेरी बढ़ जाती है तुम तक जो पहुंचा दे मुझको वो रास्ता तुम ले आना वो रिश्ता तुम ले आना वो रिश्ता तुम ले आना वो रिश्ता तुम ले
kaashi waqtiga si xooliyo u socdaa soo maahan shalay waxaan ahayn laba qofood oo aqoon aan isku lahayn laakiin maanta aqoon wanaagsan ayaan isku leynaa maxaa kugu dhacay maxaa laamusan tahay maya waxba iguma dhicin caadi leh waa iska xoogaa yah waayay haddii aad ila cashaysa ka waran caawa maya waqti kale xilli kale mayno oo ku baryaa caawaan rabaa maya caawa ma anfici karta sababta waalidka ay sugaya soo maa marka waqti kalean ka dhiganaynaa dhib male haddii ay sidaas taanaabi ila cashay ku dhehayno mar kale aniga marka hore ayaan ogaa inaad ii imaanayso hore u soo gal marka hore haddii ay kaa haysa inaad ila joogto sababta haddaaya matalaad u samaynaysa maxay tahay run ahaantii hadalladan adigaan kaa bartay waa caadi cabitaanka baran bal horta ma lagu sarqaamaa geeddaan saa'id maahan waa caadi haddaysan saa'id ahayn in lagu sarqaamo lagu dhacdhacayaan moodaa xoogaa yar oo sakradaa ku jirto oo cab si tartiib tartiiba u dareemaysaa caafimaadku cab saana ka fiican midaan maqlay hal mar ma ku dhahaa haa way dhihi kartaa gabdhaha markay cabitaanka cabaan xaaladooda ashmaha la yidhi anigaba xaaladeyda uma fiicin sababtoo ah cidlada ayaan ka weheshadaa yaa kula degan cidna ilama degana walaalkay iyo aabbahay anigoo yar ayay dhinteen hooyaday ayaa isoo korisay bilooyin ka hor ayayna dhimatay hadda kaligay ayaan gurigan ku noolahay keligaa ma tiid maanta anigoo saaxiibka ahaa garabkaada taagan waa kuwa adeega nolosha farxaddeeda ma ahan hal saaxiiboo keliya inaa yeelatid ee waxay u baahan tahay qof nolosha kula wadaago inaad haysato diyaar ma u tahay qofka nolosha ila wadaagi lahaa inaad noqoto mawaalada adiga waan kula kaftamay aniga hataa waan kula kaftamaa fudad ka muuda markaan waayo waxaad ii sheegtaa iskuul ma gelin miyaa weliga may aabbo lacag ku filan muusan haysan moogtaa marka oo laba qofoodu wax ku baro laakiin walaashaya fududaatay asan waqti walba la adeegi jira laakiin dhanka dhaqaalaha sababtoo biilkan raadiyahan asna waa raadihayna walaashayan saasay wax ku baratay walaashaa saayidaa u jeceshaan u malaynaa riidadeed ina jecladoo ku qasbanahay wax yar u kaadi bal raashinkian ilaawiyuusan guban waan soo fiirinaa qaadada kaashi kaaliga soo gaar gacanta ayaa iga gubatay maxaan sameeyaa raashinkitaan ku mashquulsanaa gacanteydaan biloobay fiiriba वो रिश्ता
waa isku dardara kulli waan ku salaama kaashi hay waa kaa qaada subaxnimo waa soo hiiraysatay see waahe maxaa u soo hurda dhamaysa weyse wax daran maa jira si gurigiina agtiisa ayaa maray waxaan isdhahay hore u salaam masaasa hashiis jeclay markii imaada hadal macaana ka baxaa unuku waalidiintiisa aan hadal fiican manoo la hadlaayo aboo kifta waryaa martidoo taagan miyaa sidan u hadlaysaa maadan isku xishoonin ka aamus wiilkaagu wuxuu doonaa samaystee jagsii hooy jag dhib malaya soo dhawaa aboo iska kifta mooya dhib ma lahan walaashaa ganga ayaan hadiyad u keenay oo la hubaa tusbal ganga kaalehe meesha hadiya lagu keenay naga dhigan ceeb wahe walaasha saan waa ayad waa jecesha hadiyad walaal adiga hadiyad anaa lay keenay adiga sarfka muxuu oo iga qabo bal kan miya halo wax aragay waayahay anaa imaanay maanta kana jaamacad ku aadaani waan baxaya sababtoo shir muhiim ayaa ii soo baxay mac salaam ayo ma dhimala idinka sii tag ay hadda waa xiranayno haa soo xiri isa soo shidan ku dhahay beledka qaaci xagga tag guriga gabdhaha dhaadheer iyo kuwaan gaabanaan jeclahay aniga ma ogtahay jecelkood khatar waay runtaa waa kuwa gaagaabanaa jeceshahay laakiin adiga gaagaabtaas laguguma talagelin ee aniga ayaa laygu talagalay saaxiiboo qoftaas innaba caadi maahan haddaad gacanta ku dhigi leed waa ku dhaxaleed naagta way shidaltaan way shidantahay koodhi sigaar caboogan karti iyo awood ayuu u baahan yahay qoftaasna karti looga hortago ayay u baahan tahay iska horta ninkan mootadaanu wataa mootadaana maba geeyaba labaad webigaana la keenaa webigaana lagu dhaqaa lacag la'aan darteed le waayaan u malaynaa sheekada ani waaba la yaabana maalintii 3 jeer oo dhaqaale kaalin bentis maaye mootaa lagu qafiifan ku dhacay saaxiibkay usne runta lemba ku jeclahay ku dhahay kanaad iga sii daran bajaqdaasba gacanta ku haystaa adi maxaa uga dhigan weydan maxaa uga dhigaa aniga awa iyo maalinaan ku dhahay shiirkeedaaba caafimaad ah maba ka dhaqaaqaayba hoosteed lees jooga maxaan ka ogaa gabdha maasta soo koray ad lee sheeg ad maxaa uu qaadabeys laakiin kan maaba qoftii la wareegayana maradan ku jira nin raga kuma jiro haddii xabaddaas aan gacanta ku dhigo ee weliba xaafaddayda aan geysan waayo मुझे दिन आए हो मुझे दिन आए मुझे चैन न आए rangiila kaashii meel ma ku aragtayna ii sheeg bal kaashii ma kastaan arkaasay maya hadda ma aragtaan ka wadaa hadda meelahan u soo wareegay waa arkay gaana laakiin wax ii sheegno بضايش على الشهله الا بطش بركه عن كل واحد انت ماين راح ادقي وسود وادين كور kaashii maanta oo dhan aan ku raadinaya adigana halkan ayaad iska fariisaa maxaa kugu dhacay murugta intii ka soo wajahday kale walaashaa way maqan tahay siday jaamacaddu aadumaba soo laabanin say wuxuu jiraan walaashay weligeed jaamacadteeda kama soo daahin ana raadiyaa waayahay nabad mootada soo ful adna soo ful isxajiya abaar wax dara ma jira wax dhibaataa ma jira intee u socotahay soo noqon moobeelkeed xataa wuu dansan yahay ayada telefoon ma qabinaysa wuxuu jiraan intee ka keentay talafkiya siiyasay way haysatay ee hooyada ay aabbaha kaa qariyeen arrintaas oh no waxaan dib ma laha soo gal musbaarka iska jira hoy aabo gangaa weli maysan imaan miya abaar murugaana haya meeshay ka baxdayna ma ogi iyadoo joogta len ogay hooyo markay bixaysa meelaan aadan kumaysan dhihin miya maya wiilkayga waxba iimaysan sheegin waa iska baxday laakiin maxay igu sheegaysa telefoon inay haysatay gabadhaas dhibka dhan adinka waay hooyo inaad iga qarisaan looma baahna inaa ii sheegtay inay ahayd hadday wax soo gaaraan ka waran kaashiina kan jaamacaddan ka soo fiirinaynaa waaye adinkana been laatiin wada hawshaan ten ah qololka mid uga bari ah
هيا سوق بمال ترى حالة سبع أنت وصلت maya walaashay gangaha iga maqan جنجا أنت الله به هو اللي بجامعة جنجا سكان قتي يا أخي waan ogahay walaashayna waa ku magacan ku dhaha gangaa ilaa isaakii guriga ka maqan tahay see wax u jiraan hooyo xataa waa walsan يا أخي سعدان جامعة واحد أنت هيا كده مرهران أرديد لك في صحيح waxaa laga yaabaa si kamaha gudaha in loogu soo xiro haddaan kasoo fiirina ka waran يا أخي أنا ماشي مسؤولا كأهي إذا كان ماني توي أسكبح يا hal أخي mar le inaad noo fiiriso isku day waa ku baryaa هدا يفهمتين تدفيع أنا تين ساسا وقات العقتان ما أنا مخاذ لهن لكن واحد أشيغني أدي شيكتي إسك إلالي صباح هذا يا أبوي صوت صعدة مقول صوت صعدة فصل كلام أناني هو قايم هي يا هواي أنت نركز ودن سنة بي يا شذي هذا وصدن سنة وجاي صباح يا أخي walaashay meelahan kama dheeraan maleyna naag waxaa layidhi nin shiirkeedan aqaana waa يا مامولة ما حواي عبتان نو كنت أدن xawaa ayada ayaa dhahda waan ku jeclahay wax qaldanna ma ku samayn gabadha aniga gangaa بتبصن كبحان كده صباح hayse wuxuu jiraan soo hadal askari wax saas weyn maaha walaashay saaka jaamacad soo aaday ilaa haatana lama hayo hooyana waa murugsantahay war gabdhaha dhibaatooyinka iska sameeyaan ayaaba sidana meelahaas iska soo askari gabadha baashaan walaashay noocadaasa ku tilmaamaya adiga qaylada faraha badan iska daa waa kuma ninkaan hadlaay mudana ninkaana qaqaylino kaala la hadal bal galeex ayowe maxaa u baahan tahay oo sidaan dhan ayuu ku hurey fadhiisaan ku dhah ejles waxaan ku weydiinaa magaca kasi maxaa lagugu daraa kasi jotri kaasi jodri waxaan kaaga digaa inaad buuqa iga dhaafto halkan gurigaaga maaha la soco dhegeysa aniga saxafiyad ayaan ahay qof bini aadan inaad sidaan ula hadasho looma baahno waajibkaagu wuxuu yahay dadka dhibaataysan oo halkan kugu yimaada inaad saacido meeshaan ila fiiriye hadal iyo buuq ayaan diidanahay hadalkii buuqi layna wadaa war waxay dhahay saxaafadda ayaan ka tirsanaa qof weriyaana waan ahay habeen saqdhaxa ayaan nin la socotaa ceebtaas ma ka xishoonaysi miya adiga taas wax kaa quseeyo ma lahan wax kaa quseeya male maa itiri okay ha warqaddaan qabo qalinkaanna ku darso wixii sharciga adigaa yaqaan wax walba oon fahmaayo meeshaan igu qoro keliya hay soo hadal marwo gabadha walaashay saakay kollejka soo aaday gurigana dib ugumaysan soo noqon galaaskeeda ma ii sheegi kartaa taas kuma dambaabi karaan ma aqaan waayahay magaceed gangaa jowtri waay okay waxyar isugyaa gabaraa la raadinoyaa magaceedana gangaa ayaa lagu sheegay waxaan kaa rabaa galaaskeeda inaad ii soo gudbiso sida ugu dhaqsiyaha badan ma aqaano gabdhaha sanadkaana waxay rabaan ayay iska samaysanayaan maba ka fiirsanaya waxay samaynayaan mayaca iyo kuuskuuskaa laga badiyey ma hubtaa waayahay idhegaysta liiska ardayda markii la baaro gabar gangaal dhaha magaceeda waa laga waayay siday la tahay akhbaar khaldan ayaad hesheen sidaas darteeda halkan ku timideen marwa macquul maahan midda sababtoo ah kuleejkan ayay dhigataa gabadha halkana dhiganaysa kolley aniga war waa idiin dhameeyey waxaan idiin dhahay gabadh lagu magacaabo gangaa kollejkan ma dhigato si kaloo aan wax idiin fahansiiyena maba aqaan suuragal maa gabadha walaasha subaxii soo tegaysa iskoolkan in imaanaysa meel kale ee aadama subaxii way soo tegaysa laakiin iskuulkaa ma imaani meelo kale inay adaa laga yaabaa oo danaheeda qaaskaa ay raacad maxaad ku hadlaysaa walaashii kollejkana imaanaysay wayna dhiganaysay xisaabtan aan ka egaa idinkama yeelayn see waay ma maqlaysa naagta ku awarta anaa walaashii kollejkan keeni jira waxay rabaan hadday ku hadlaan xaqiiqdan ka hadla anigana ma ka yeelaan ku dha keliyaha lagala baxmaya walaashii waa hubaal wax lee khaldan anigaana soo ogaanay ee waxaa ii sheegtaa jaamacaddan meelaan ahayn ee aadi jirto mayaa jirto shaashi aniga arrintan waa fahmi laahay qof ayaa jira oo ciyaartaan la ciyaaraayo qofkaas marka waad ku qiyaasaysaa qofaad cadow isku tihiin mayaa jirana
awa sugad ya ha iga celin qofna ya waryo ninka dheer walaashii meel ku sheeg awe waxaan ku qoslaysaa afkaada ka tumaya halkan ma waxaad u timid inaad walaasha ani weydiiso dhegeystaninkan war ganga aawey haddii aan walaashaa meel uga xalaabto kuma sheegi lahayn aniga walaashaas ii weydiinaysaa ii sheeg bal haddaadan walaashii ii sheegin hooyada ballan wiil la'aanaan dhigaa ee ganga sheeg gangaa hadda aniga meel kuma ogey haddii aan ogaana xataa kuma sheegeen maxaad iga qaadi kartaa iska bax saaxib weji kala arki kara kaashi قوم يا كسينيسا اسكتا نقفل لا سعادي لما السكر صح iska dhaaf ninkan haddii kale uu kugu dhimanaya inuu dhinto miyaad rabtaa walaashaa meeshay joogta anigaa kuu soo ogaanaya isdeji marka balan waan ku dhahay ninkaas ma dhaafay ka arsanaa sisna baduu jiile barkiin maa ku dhacay maxaa waay gabartaas haddii kaa celi lahayn saacadaanaan ku dhahay waa baabi ila daddan waa runtaada saaxiib waa ku culayska nin waala maan iska celi karnaa ninkaas weli baxaa kaaga sii daran haddiis gabartaas soo dirta markale waan jijibi haadan inta kagaleena sankaday soo yeele fiiriya saaxiib baa la soo socdaa maxay qoftan maxay naga soo doonta haddana waa yaabe ma aqaano qoftan maxaa uga baqaysaa adig war aniga qoftan ka baqaayaan ku dhahay ee hadday nala joogta hadday naga maqanta labadaba dhibaato ma naga mar mar dhibaatadu inay haystaa hay babiina inaan kula hadlayaan u baahanahay ma aniga ani ma ila hadlaysaa haa adiga oo ninka waalna ma ku soo anfici waay saa darteed ma aniga igu maada ii sheeg bal labalabadayga dhaafee 2 daqiiqo aan kugula hadla may siin kartaa okay xagga nagay عيارته كان بي ويا مليح كان بي انا قد عيارته تعال أبيك مسكح هذا ما الله هذا إيش أكبر سوق بالعكوي ما دورت وحارت أسك 7 سنة تحبك أنا وادرم كلا نبكي أذيك كويس لكن نبكي أجو حلو بهاي إن أتحل وهلي كرتيد ما الله بهنا قفتان إن أدبس عطه في المقال كذا كاشي أرمهي ما يروى إنك على هذا الولي بس جوني ويح وحير على يد القاطية تحبك وادي بياه دي وين هايستا babiina ayaan arrimaha gankaa ka wareystay arrimaheedana wuxuu ka og yahay malahan warkaasoo beentiis beentoona quutaa been wuu sheegi jiray laakiin markaan been ma sheegay xaqiiq ayaan indhihiisa ka arkay karuntu sheegay kan beenta sheega ma kala qansi wax ka ogaana markaani maanta ayaan jaamacadeeda tagay waxaana soo ogaaday gabar saaxiibadeeda oo shuruutiin lahaa inay jirto gabadhaas ayaan u tagaynaa wax walbana iyadaa noo sheegi doonta haa walaal meesha waan joogaa qolka lambarkiisa ii sheeg 6 miya haa waayahay waan arkay waa mahadsantahay soo socda aniga dhowr jeer ayadina arkeen labadiina waxaan isku dayay inaan la hadlo laakiin iima suurtagelin walaashay gangaa soo saaxiib ma tiinadi haa isla shalaba hal galaas ayaan wada fadhin labadeena waa maqashaana marqaati meel erka mareedna gabadhan kulejka dhiga jirta waayahay meeshay aad ma ogtahay gangaa
ma sheegi karo balse waxaan la socdaa shalay dhan inay si saa'ida u murugaysneed laakiin maxay la murugsaneed waxaa jira hal wiil isku galaas aan nahay magaciisana waxaa la dhahaa mayo आजा तुझ पे मैं रख दूं चांद को इस तरह पालूं तेरे आसमान को बादलों समय बन के हर जगह तुझसे ही मिलके बेतहाशा बेतहाशा तुझको ही चाहूं मैं बेतहाशा बेतहाशा तुझको ही चाहूं मैं पहले से थोड़ा ज्यादा तुझको ही चाहूं मैं तुम हंसो तो जान मुझको क्यों खुशी मिलती है तुम जो रूठो यार मेरी आंखें भी रोती है बेतहाशा बेतहाशा तुझको ही चाहूं मैं saaxiibi aniga ninkaas waan kaa waanina waa turufatoornimo kuma ekaysana shabeelnaagoodna wuu yahay iska dhaaf si ahaanbo waan kaaga digay kala adima waa xarabtaa aniga welweli cabsiinaya ugu abuurta ninkaas waa ku kalsoona waana ku qanacsanahay intaas iigu ekee anigaa raalli ka mana u malaynaya waxyaabaha aad ka sheegays inuu ku dhaqmaayo बेतहाशा बेतहाशा तुझको ही चाहूं मैं बेतहाशा बेतहाशा तुझको ही चाहूं मैं पहले से थोड़ा ज्यादा तुझको ही चाहूं yaa waaya gabadha in aab gangaal dhaha adiga soo lama socotid doorashada in ay soo dhowdahay gabar iyo waxaan loo joogin leh maxaad ugu daba wareegtaa sumcaddayda maad rabtaa inaad baabiisid adiga iska dhaaf waxaan oo kale yaan kugu arkin mar dambe laak aab gabadh waa gabar wanaagsan runtii aniga wanaaggeeda iyo xumaanteeda shaqo kuma lihi gabar haddii aad rabtid gabar leebalkaada waa inaad raadsataa maahinee waxaanoo kale ha la soconin mar dambena ma kugu arki karo gabadhaas adigoo daba jooga sideeda bannaanba waa inaad ka hartaa laak aab waa ku baryaa aamus wax badan waa uga diga waana u sheegay ninkaas inay ka harto balse ganka way ku madax adeegto way la socotay abi kala adiga maxaa kaa qaldan muwaalan tahay gacalis ha ka baqin mootadii inay ku dishay lagama yaabaan ku dhahay sabax mootada soo kor xogaa aan soo dalxiisnay maxaa sugaysaa maya aniga hadda xiise ayaan leeyahay waa ka xumaa meel dheer maaha kolajka hareerihiisaan kusoo wareegaynaa iyo haye dekay maxaa sugaya saaxiibey xiisadaadina aawa intee ku ogta adiga leeha ka daayan orod meelaha aad u badan ayay ku kulmi jireen balse meelaha ay ku kulmi jireen waxaa ka mid ahaa galaaska iyo maqaayadda sidoo kale adeerka gurigiisa ayay ku kulmi jireen laakiin maalin waxaa dhacday maxaa dhacay maalinkaas maxaa xigo shuruutii hadal gangaa shaaxa uu kaa qabo maxaad u cabilaada murugna way kaa muuqata sidee waxu jiraan saaxiibe abaay dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa dhacday maxay tahay maad ii sheegtid aniga war ayaan leeyahay waraan leeyaha
ii dhaaro war ma leedahay haa dhowr jeera isbaar jawaabtan isku mid ayay noqotay kaashi naftaada xakamee walaashii waa ku kalsoonaa waxaanu dhan inaan samaynan ogeyn aniga maxay u samaysay laakiin balse ninkaas ma dhaafay waan dilaya shuruutii kadib maxaa dhacay ma aqaano wixii dhacay kadib maalintaas ayaa nuskeen dambaysa aniga ganga hadda anigu waan tahay miska kay fasixi kartaan iska baxe waaya iska bax haddii aan kuu baahna anigaa ku soo wacayo wacad waxaan ku maray hadday ganga wax gaaraan dadkan waa si dhibayaan sukuurad maxaa la yidhaahdaa adiga sidee wax kaa yihiin ma jinniyaad qabtaa guryaadeen maas ka garaacee waardiyaa sharafta la adiga miya waardiya maya aniga gurigaan balleeya dharkaan fashion ayaan wataa famil gurigaan degnaa familka gurigaan degnaa kuwa kundheelo way aadeen anigana ma aanan jooga oday madax beenha ii sheegaya runtii ii sheeg haddii kale madaxan ku qariya waa ujeedaa guriga inaan la hakelin dhar waardiya watee intee aadeen waa bixeen dadka gurigaan jooga meelay aadeen aniga ilaahay hadda ma aqaan idinka xaad rabtiin oo halkaan u timideen taasaan balla yaabanay xaad rabtiin أنا كوا أنا كالي كاشي 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 ما حسميني كاشي سو في عنتي وان في عنا هذيك السيداتة أنا وان في عنها dadka sama qaniya haayeen ninka xaqiis ay ka socdeen aan maleena mar la gacanta ay soo galaan ana ka sheegsiinay balan iyo xidhi waayaan ku dhahay idaf أبارح مسوقاتي هذه يقان gabadhana meesha ay ku sugantaa waan ka walwalaaya hooyaa mugta iska dhaafa gabadha walaashin guriga way imaanaysaa anaana soo raadinaya meel walbana tagaaya mar dhibna oo kaba gashana रास्ते हर कदम चलते ही रहे राहों में दर्द सौ मिलते ही रहे रास्ते हर कदम चलते ही रहे राहों में दर्द सौ मिलते ही रहे धुंधली धुंधली राहें हैं धुंधली हर मंजिल तुझे ढूंढ रहा दिल 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 ما سند يا run ahaantii shuruutii shala markay ku aragtay adigoo xanaaqsan arrin ayay kaa qarisay wayna kuu sheegi weysay sidee maxaa waahaas xaqiiqdaa waxay tahay
abimaayo aabbihiisa raalli kama uusan ahayn xiriirka ka dhexeeya labadooda waxayna go'aansadeen maxkamadda inay isku guursadaan labadooda wakaale guurka ma u socon galeen may macnaa bere aniga waxaan u socdaa lagnaw shaqo muhiima ayaa ii soo baxday waxaan kaaga baahanaa maxkamadda inaad tagto oo soo ogaato siday u dhaceen waxaa laga yaabaa markaas kadib inaan ogaano gangaa meeshay ku sugan tahay arrimaha guurkan rabaa inaan wax ka ogaada ma ka ogaan karaa okaada waryaa hoo iga qaba feelkaaga adina okay mudane arrimaha guurka xoogaa say kii qasiini wax ma iiga sheegi kartaa yacni saaxiibkay qof weynaa buu eg tahe gabadha da'deeda ii sheeg bal 20 aa u go'da gabadha haa waana walaashay way maqan tahay marka in halkan lagu guursaday in kale sheekadaas baa keenta soco waryaa soco meeshaan see tag walaashay gangaa muhiim ayaanu ah hooyana waa igu wareerisay way u baahan tahay haddii ay walaasha maqan tahay anima iga soo raadsanay waryaa iga tagaan ku dhah meeshaan isaga bax soco walaashay way maqan tahay darteedna qof waan u dili karaa intuu dhiiggayga qabuu yahay waxaa ku wanaagsan feelka inaad ii baarto oo arrintaan aad ii sheegto haddii kale waan ku gedinayaa xoog miyaa makuu sheegay meeshaan isaga tag soco abo magaceeda la ii sheeg bas gangaa jowtri okay ayahay ahaa gangaa joodri somaha waa tana 5 maalin ka hor ayaa halkan timi si loo guursado laakiin nasiib xumo guurkii maba uusan dhicinba abooben badan arjog yaadi jinni maa qabtaa muglabaad maamahan timid xaggee soo socotaa ii sheeg see wax u jiraan wasiirka rabaa inaan la kulmo warniyow macquul maahan aniga baxar hay gelin meeshaan waa layga buro irsaaqadan kana sida bariiskayga le ciidaa ku shubay armay sidaas yihiin wax baryaa yaa waay ninkan adiga kuu yimid inuu kula kulmoo rabaa wiilkaada iyo gabadha walaashay waa isku kulleejo wayna isjecelihin arrimahoodan rabaa inaan wax kaa weydiiyo miga ogolaanaysaa marka ninkan xaafadda dhan baa laga yaqaana waa ninka caddi waalaya iskila adiga magacaa akaashii waaye dhegaysa kaashii wiilkayga aniga dabeecaddayda ayuu leeyahay ma fahanta gabdhaha masaakiimankae annaga jecel lama jelno gabdhaha masaakiinta aad sheegayso soo bila'aadan maaha yaa ka xaniba jacaylkana faqiir iyo taajir intaa uma la socotaa adiga guuxaadaa ka dheerayno ma wanaagsana ereygaas haweenka isticmaalaatan kale halkan aniga waxaan u imid inaan wax yar kaa dhadhaci inaan kula buuqamaa gabadha walaashay wiilkaada ugu mehersada xaggee joogtaa marka arrintaas ii sheeg walaashay xaggeen ka raadiyaa wiilkayga hadda mansuuri ayuu aadi markuu yimaado aniga ayaa waraysanaya kadib waa isbuuca waa igu dheeriyaa ma sugi karo walaashay imbortonsiyaanu ah hooyadayaa u baahan waa ku baryaa raad adiga markaan waad ka badbadinaysaa xanaaqaygana waad keenaysaa walaashaa hadday iyada isla wareegta eedoo nin walba shukaasanaysa wiilkayga miyaad qoorta u gelinaysaa waad edab darantaskadhe waad ka badbadinaysaa markan waan ku dilayaa soo saacyaanwarnasiida waan kaa sii tegaya hadda waxaad ogaataa walaashay hadday wax gaaraan adii wiilkaada inaan idin tilmisana gacanteeda ay idinku gubo waa ballantaas dhaqaaji warya adna ruufyaanay sicir barakaana xaguu nooga yimid ayaa banaya madax xanuun aan ka qaadnay maalmahana biilkiina lagu wareeriyey wax alaale waxaan sameynay waxyaab baan kana maxaa taleefanka dirsanaya asagana halo haa waa ku maqla waa kaashii wax ma ogaateen haa goobta nikaaxa waan tegay balse nikaaxi ma uusan dhicin abimaayo arrimihiisa waa inaan ogaanaa sida ugu dhaqsiyaa badan gurigiisaan tegey waxaan soo ogaaday aabiis nin xun inuu yahay runtii abimaayona waa maqan yahay safaruu ku maqan yahay weli muusan imaan waxaa laga yaabaa walaashaana inay asaga la joogto meeshaas waa inaan tagnaa okay waa war fiican
इतना भी ढील मत छोड़ कि मैं पूरी की पूरी बिगड़ जाऊं। तू आँख सेकता रह जाए, मैं किसी और के साथ उड़ जाऊं। सही है ना? बोलना। रात नशीली, बात नशीली, आज तेरे साथ 2-4 कश ले ले। रात नशीली, बात नशीली, आज तेरे साथ 2-4 कश ले ली। उड़ी उड़ी फिरती है बेबी क्लब में, फ्लोर पे गिरती है आके मेरे लब में। मैं हूँ पतंग, तू है माझा 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 माझा। दम लगे इश्क दा ढूंढे राजा, दम लगे इश्क दा ढूंढे राजा। दम दम मार बेबी नशे का मसाले, दुनिया की फिक्र तू धुएं में उड़ा दे। I know गलत है नशा लेकिन चढ़ने दे, थोड़ा मैं बिगड़ी थोड़ा और बिगड़ने दे। बाहों में ले लेके अकड़ मेरी झाड़ दी, खुद तो बिगड़ी थी मेरी दी आदत बिगाड़ दी। तू है पतंग मैं हूँ माझा 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 माझा। Oh yeah, she's tripping out. दम लेके इश्क दा ढूंढे राजा, दम लेके इश्क दा ढूंढे राजा। दम दम मार बेबी नशे का मसाले, दुनिया की फिक्र तू धुएं में उड़ा दे। waan ku salaama. waan kaa qaaday, maxaan kaa caawiyaa? run ahaantii saaxiibkayga oo lagu magacaabo abimaayo ayaa halkan imaaday. waxaan u baahanahay inaad ii sheegto qolka uu degan yahay. in igraal noqo, anaga macaamiishiina warbixintooda ma dhiibi karno. laakiin aniga waxaan ahay qof saxafiyad ah, berina waa dhalashadiisa. waxaan u baahnaa lama filan inaan uga dhigay maashayga. lama filan may dhahday? haa. okay, waaya haddii sidaas tahay filkan kuu fiirina waxay rasugaa abimaayo bande soo maraadinaysa ii sheeg. haa. qofkaas hoteelkeena ayuu degan yahay, qolka nambarkiisa waxa waaye 605. sidoo kale qof dumar xataa way la socotaa. waad mahadsantahay. yaa imaaday. sheekha waa sana soo fiirinaya. jawi degan awo ganga gangaade kale war maxaa tahay sheeg eersumada ku dhaqmaysa waa maxay away ganga war aniga ganga aqoon uma lihi qolkayga iga baxan ku dhahay bembe sheegaysa wariya sheeg ganga war waa khaldanta qolkayga baxan ku dhahay maxaa tahay adiga maxaa meeshaan ka dhacay? ولا سكنجا ولا شيء قوم لي هيك رئيسك ولا شيء قيام السكامة يلي كاشي ما بيحسن سيدا كالي كاشي وكادي ورجتسي كاشي رونتو تشيك كاشي ستاك ايشك ولا سكنجا والله واش على قوم لي امس صلح قفي ولا شيء كما قنت ودريمي كرتا انو وحبا markaas xiriirneen walaasha ii sheeg shanayaan ku tirinayaa
haddaad sheegayso walaashaad aqoon uma lihi waa ku baryaa iska kiisida kow kaashi walaashaada ma kasaayo kaashi sida waa ku baryaa diline shan استوديو فان بوش مقدشة مقدشة kaashi xilligan waxaa macquula booliska magaaladan inayna soo dabagalayaan waa runta waad nasaxadda laakiin aniga cid kama cabsanayo wax saxan ayaan sameeyey hadda gurigan taga hooyayaa baan u sheegaa wax walbo igu dhacana diyaar ayaan u ahaa markaas ciqaab walbana ha lay marsiiyo laakiin wax qaldan marnaba ma aanan samayn halo waan ku maqlaa haa isbatoore waayahay waan ku fahmay yaa waay booliska banaaris ayaa taleefon ii soo diray walaasha arrimaheeda inay wax ka ogaadeen aan u malaynaa saldhiga ayuu noogu yeeray wejigeeda lama aqoonsanayo wuu burburay kaashi saakadan waa saakadan hadiyad ahaanta ugu keenay abay dharkan caadi maahaya magaalada waxaan kaa rabaa inaad shiididaan ku dhaha maanta kala kici hulciyaan ku dhaha xagga tag dharka soo xira कभी कहीं थम जाए सांसों का सिलसिला कभी नहीं टूटेगा यादों का काफिला जिंदगी छोड़ दी तूने किस राह में क्या से क्या हो गए हम तेरी चाह में जीना है मुश्किल तुझे ढूंढ रहा दिल तुझे ढूंढ रहा दिल तुझे ढूंढ रहा दिल तुझे ढूंढ रहा दिल दो किनारों से हम थे मिलके भी ना मिले दरमिया थे दिलों के मीलों के फासले टूट कर रह गए हम चार दीवारों में दफन है जिंदगी जैसे मज़ारों में कुछ नहीं हासिल तुझे ढूंढ रहा दिल तुझे ढूंढ रहा दिल तुझे ढूंढ रहा दिल तुझे ढूंढ रहा दिल sababta aba miyuu u disha maxay tahay war adiga ayaan kula hadlaa sababta aba miyuu u disha maxay tahayna ii sheeg walaashiihu jecel beena ninkaas la sameeyey kadibna waa uga baxay waxaa suuragalay inuu gacantiisa ku dilay walaasha haddii lagu booday dadka maa dilaysaa adiga tan kale magaaladan adiga maa boolis ka ah waxaa rabtana ma iska samaysanaysaa qofka aragtana ma iska dilaysaana walaashay darteed wax walbaan u samayn karaa oskar waxaad ileedahay miyaa walaashay aniga qof walba waanu dili karaa war walaashaa darteed haddaad dadka aad u layso maxaad faa'iidaysaa ii sheeg hadda ninka waa aad dishay
walaashaana waa ay kaa dhimatay maxaa kuu soo laabtay marka waa faa'iidaa waxbana cimrigaaga inta ka dhiman hadda xabsi ayaad ku dhammaysanaysaa cid kaa soo saari kartana ma jirto meeshaasna waa meel aad iyo aad u adag waryahay dhegayso ninkan oobi ayaa ka qoraysaa haddii kirif yar aad ka dareentidna lafaha ayaad ka jibinaysaa amarkaasna aniga ayaa ku siiyey waxba ha ka baqin adiga isii koofita qoftaad darteeda intaasoosan u soo dadaalaysay hadda dunidan kuma noola arrintaanna booliska iyo maxkamadda ayay u gudbaysaa booliskii maxkamadda horta anigu walaashay ma noola anigana maanta waxaa noqday gacan ku dhiig leh cimrigayga inta ka dhiman xabsi ayaan ku dhammaysanayaa marka wakhtigiinan kaa lumay maaha waxaa ila habboon inaad iska guursato kaashii niyadda ha iska jebinin waxaan u malaynayaa arrin inaan ilownay arrin maxay tahay waxay ilowday abimaayo maalmahan oo dhan gobolka masuuriya ayuu joogay kadibna waxaa noola soo sheegay walaashaa meedkeeda banaaris inuu yaalo laakiin micnaha wuxuu yahay qof kale inuu dilo gabadhan weliba magaaladan ayuu nala joogaa qofkaas yuu yahay qofkaas aniga ayaa qof kale u dira waana la soo ogaanayaa qofkuu yahay iisoo ogow balan waxaa igu ah inaan dunida ku dhaafin ninkaas waan dilayaa gebigiisba waa la soo ogaanayaa laakiin hal mid ka taxadir adiga looma baahna inaad xabsi gasho sababtoo ah gangaa cadaalad ma helaysa haddii aad gasho waa inaad diiddaa dembigan inaad gashay waanba caddaystay seen u diidaa mar labaad ayaad caddayn kartaa inaadan dembigan wax lagu ku lahayn maruu xilliga booqashada oo dhammaaday wakhtigeeda waa bixi kartaa haddana aniga waxaan ku sheegayaa kiish aan gacanta ku dhigay ma laga yaabo inaan ka laabto kiiskan anigaa soo afjaraya lacagta oo keliya adiga ii badi kaashii in loo dhammeeya ayaan rabaa meeqaa kugu filan ii sheeg kaashii in loo dhammeeya wax weyn maaha adiga waxaa lagaa rabaa oo keliya kiiska inaad dhankayga u soo wareejiso soso tartiibka fariista dacwada way furan tahay hawshiinana waa bilaaban kartiin mudane xeer ilaaliya haye ninkan aad u jeeddo waxaa lagu soo eedeeyey dil uu asiga geystay warkaale adiga maxaa sheegaysaa dil uu geystaa lagu soo eedeeyey hortii dhegayso adiga waxaad tahay abukaataha magaaladan uga caansan mahadsanida ha kuu dambaysa hadalkayga dhegayso horta maxkamadda waa inaad ilaalisaa sharafteeda sababtoo ah baan ayaa af kugu jiro waxaad doontaa ayaad iska sheegaysaa aniga baanka waa cunaa laakiin sidaadoo kale miye waxaan ka baqaa inaan adiga kugu daysadon maya bis haddaad la xalina kan keen baraaw waxba ha ka welwelin baande mudan xeer ilaali xamaasad oo keliya i qaade hawshaada wado ee bilaaw aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudan xeer ilaaliya ninkan lagu magacaabo kaashi maalin cad ayuu wuxuu hotelka ugu tagay ninka aan aniga wakiilku u ahay aan u doodayo mudane bandey kadibna wiilkiisa ayuu kow ka siiyey weliba arrintaas keligiisa muusan ahna waxaa garab ku siisay marwa deevina kanna been ayuu sheegayaa mudane garsoore ninkan waxuu daldalayan ilaa iyo hadda waa been ninka la yidhahdo abamanyu qalad oo asiga sameeye darteed ayuu isku dilay ninkanna wax uu dilay haba yaraatee ma jirto waa la nabsanayaa abamanyuna sida sharaftiisa iyo sumcadiisa u badbaadiyey darteed ayuu dabaq iskaga tuuray asiga ayaan isdilay ninkaas xaqiiqada jirtana waa saas mudane xeer ilaali arrintan waxaan rabaa bur iyo biyo inaan u kala saaro haddii aad ii oggolaanaysana ninkan ayaan jeclaan lahaa laba kelmadood inaan weyddiiyo si aan xaqiiqda bannaanka u keeno intaasoo keliya ii oggolow waad weyddiin kartaa mudane kaashi waxaan ku weydiinayaa walaashaada qofay la baxsatay ama ay howlo kala dhexeeyeen oo waxun ay samaynayeen wakiil maxaad u qaylinaysaa aniga
su'aal ayaan ku weydiiyey waa inaad iga jawaabtaa walaashaada qof ay bannaanka la wareegaysa miyaa jira haa raadinteeda bannaanka waaday markaas soo waasi kadibna abamanyu ayaad u dhammaysay soo maaha hod ayaan ka qabaa mudana garsoore ninkan waxa uu sameeyahay waa dhaqan xumo ninkan ayuu rabaa maskaxdiisa hadba meel inuu wakiil isdaji adiga ninkaan ha dhammaysto markaas kadib su'aashaad rabtid waa weydin kartaa okay aadaa u mahadsan tahay mudane xeer ilaali adiga waxaan ku weydiinayaa jakir bande gurigiisa ayaa tagtay soo maaha haa kadibna waad u soo hanjabtay isaga oo keliya maaha isaga iyo wiilkiisaba inaad dili doonto aniga su'aal ayaan ku weydiiyey iiga jawaab adigana mudana waxaan rabaa bande laba kelmadood inaan weydiiyo haddii aad ii oggolaanayso waa waraysan kartaa mudane bandey waxaan ku weydiinayaa kaashi gurigaaga ma kuuga imaaday haa guriguu igu yimi kadib muxuu ku weydiiyey wuu ii caga jugleeyey wuxuuna dhahay walaashay gangaa haddii aan waayo adiga iyo wiilkaada abmiyu waa idiin dhammaynaya mudane xeer ilaaliya waa maqashaa ayaan u malaynayaa ninkan wuxuu dhahay walaasheeda haddii la waayo adiga iyo wiilkaagaba waan idin dhammaynayaa gangaa waa la waaye kadib ninkan wuxuu sameeyey hoteelka ayuu abamanyu ugu tagay wuu dilay kadibna dabaq ayuu ka soo tuuray hadday macquul tahay balwanji ayaan rabaa su'aalo yar inaan weydiiyo waa weydiin kartaa mahadsanid balwaan hadalkayga si fiican u dhegeyso ninkan waxa uu sameeyey gar ayuu ku lahaa maxaa yeelay wiilkaaga wuxuu ku dhaqmay wax aan lagu dhaqmin walaashiis ayuu si xun u galay nolosheeda iyo mustaqbalkeeda intaba waa uu ku cayaaray sidaas darteedna inuu wiilkaaga dilo waxaa sababtay mustaqbalka walaashiis ayuu ku cayaaray hadalka aad ku hadlaysid ka fiirsa haddii kale warniyow inaad isdejiso ayaa ku wanaagsan xanaaqana ma kuu fiicna hadda wiilkaaga oo keliya ayaa dhintay xaqiiqadan aniga haddii aan soo saaro waxaa ballan igu adiga iyo familkaaga dhammaan inaad dacweeyo aniga aqoon ma iilid laakiin waxaa igu ballan inaan kawkaa siiyo igama badbaadaysid mudane baandey waan ku dilayaa ballan waaye midaas sharaftaada ilaalso maxkamadda sharaftaadana ilaali maxay dhahdana waa ku baryaa adigoo mahadsan waxay dhahda igu celi mudane garsoore marka ugu horrayso adiga iga raalli noqo waxyaabahan inaan sameeyo aniga ma jeclaysan laakiin waxaan rabay ninkan laba kelmad oo keliya inaan ka soo saarto waadna u jeeday laba kelmad iyo ka badan ayaan ka soo saartay ninkan markii aan su'aalo weydiiyey waa uu xanaaqay kalarkayga ayuu qabay wuxuuna yidhi adiga ayaan ku dilayaa weliba asigoo wasiire oo dadka xil u haya ayuu wuxuu leeyahay waan ku dilayaa waana ii caga jugleeyey bal ninkan haddii wiilkiisa uu gubtay ninkan kale walaashiis la dilay asigana siduu noqon karaa aniga waxaan rabay intaasoo keliya in aan idin dareensiiyo waana idin dareensiiyey mudan garsoore jaala garsoore haddii aad ii oggolaanayso askarigan ayaan waraysan lahaa waad waraysan kartaa kaashii afkiisa ka qirtay abumayo inuu gacantiisa ku dilay waa in iska cadda dood ayaan ka qabaa mudane garsoole ninkan aad u jeedda waa askari saldhigga booliska markii la joogana wax walba wuu waadaa laakiin maxkamadda caddayn ayaa looga baahan yahay annaga caddeemo waa haynaa caddeemahaasoo dhanna maxkamadda ayaan hor keenaynaa jaala garsoore waxaan kaa codsanayaa ninkan kiiskiisa inna laga soo afjaro sidaa daraaddeeda waxaan rabaa caddeemo kale inaan ku hor keeno ninkan kaashii lagu magacaabo 24 oktoobar hoteelkeena ayuu imaaday marwaasna way la socotay meeqa maalmood ayuu joogay hal saacadood loo joogay halkaas saacadoodna abamanyu waa la dilay garsoore intaas ii qor mudan meesha waa jooge markhaatina waa ay ninkan lagu magacaabo kaashii waa isdaba orday abimayu naagtan markino usay la socotay waana celcelinaysi markay hoteelka ay joogay kana qolkaas gali kadibna ninka dabaqaasba ka gami ka warangay saas u dili ninkan inas dhintaan malayna garsoore waa run abimayu ninkan kaashii la dhahay ayaa dilay weliba markuu dilay wuxuu ku soo celcelinaya walaashay ganga aawe meel iigu sheeg abimayuna wuxuu lahaa aniga walaashaa ma aqaan weligayna ma arkin laakiin hadalkiisa wuu aamini waay ugu dambayntiina uu dilay weliba isagoon wax dembiye geysan weydii ninkan sababta ninkaas masaakiinka uu dilay mudane mehender waxaan rabaa hal su'aal inaan ku weydiiyo kaashii markuu kor karahay adiga halkay ku sugnayd ii sheeg receptionkaad joogtay kaashii iyo abamayu markay isdagaalayeen labadoodana halkeed joogta adiga meeshaa ku sugnayd ii sheeg receptionkaad joogtay mid kalaan rabaa inaan ku su'aalo kaashii markuu dabaqa ka tuura abamayu waxaan rabaa inaan ogaado meesha adiga aad ku sugnayd inteed joogtana receptionka isla markaasna joogtay alloora saas deeta adiga waxaa tahay sixiroole maxaa yeelay receptionkaaga adoo joogto kor haddii laysku dilaayo wax walba lagu suubiyayo adiga aad ogaanaysaa soo maa su'aalaan rabaa inaan ku weydiiyo kaashii markuu dilaayo abamayu adiga
ما ujeedo oo waliba indhahaaga ku arkaya ninka meesha markii istaagna aan waa arki Hay. wada dhiigaas ay wejigiisna cabsiyaanba ka dareemayba ani runtii waxaanba ku dhawaaday inaan iska cabsaday waayahay marwadaasna marwadaan mayno meesha waa taagneed ninkay celcelinaysi su'aal haddii aan ku weydiiyo marka ugu horreysay kaashi adiga aad arkaysay goormay ahayd aniga abimiyo qolkeena markuu soo galay ayaan arkay okay maxaa qabanaysa marka adiga aniga waan qabaysanaya markaas waa qubaysanaysay okay abamayuuna muxuu qabanayaa ii sheeg wuu qabaysanaya isna wuu qubaysanaya alors hotelka halkii qolba laba musqul ayuu leeyahay soo ma hal musqul uu leeyahay oo labadiina hal musqul maad ku wada qubaysanayseena been la waa biyaha dhaqaalaysanaysen soo ma dood ayaan ka qabaa jaala garsoore ninkan su'aalaha uu gabadha weydiinayo sharaf dhacayay maxkamadda u keenaysaa ma loo baana su'aalaha noocaas oo mishraa isdeji adiga isdeji maxaa la dhahaa qofta waa dumar su'aalaha uu weydiinayna fiir meeshu waa maxkamad ma loo baana su'aalaha adiga ha isku daya aniga inay matasho abukaate hawshaada wado mahadsanid hal su'aal ayaan rabaa inaan ku weydiiyo markii adiga musqusha aad ku jirtay ninka la yidhahda kaashii ma arkin soo maan sidaan filaayo markaad musqusha ka soo baxday kadib ayaad kaashii aragtay oo weliba meeshoo jooga aad ugu tagtay hal mid ayaan rabaa inaan ku su'aalo markii aad musqusha ka soo baxaysa dhar ayaad wadato soo maahan adiga shukumaan awti shukumaan iga dheh adigoo shukumaan xiran ma soo baxdo oo dabaqa kor aad kortana maya way haddii sidaas ay tahay adiga dabaqa markaa koraysay dhar noocee aa wadatay ii sheeg soo taano gudaha dhar kale ma kuugu jirayna su'aalaha noocan oo kale oo maxkamadda gabar lagu weydiinaya waa adiga abukaat su'aalaha aad weydiinaysa gabadha waa maxay mudane su'aalahan aan qofkaan weydiinayo muhiim ayay yihiin marka haddii ay macquul tahay su'aalahayga aan sii wato aniga hay waayahay wadahe naga wad sootaanada aa xirneed maxaa kaaga hooseeya ii sheeg dhar kalaan watayno dhar kalaad wadatay yacni hadalkaaga waxaa ula jeedaa musqusha shukumaan adoo wadata ayaad ka soo baxday kadibna shukumaankii ayaad ka siibtay sootaano ayaad gashatay dhar kale ayaad hoos ka gashatay waxyaabahaasoo dhan intaad samaysana kaashi kor ayuu kugu sugaayay adigana waa soo baxday kor ayaa timid waxaadna aragtay ninkaas oo dabaqa laga tuuraayo weliba indhahaagaad ku aragtay waa soo baxday ninkaanaad u timid markhaati aniga ayaa arrintan ka ayaa tiri dembigana kaashi ayaad rabtaa inaad dusha ka saarto deganaanka ilaaliya aamusa 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 hala aamuso mudana garsoore waxaa la rabaa maxkamadda in maskaxda laga labalabeeyo ninkan kaashi ah dembiga lagu soo ogo ama markhaatiyaalka iyo caddeemanka la keensaday waa wax kama jiraan wax ka jirna habeeraatee ma jiraan abukaata mishraa wax kale miyaad rabtaa inaad sheegto hoteelka highland kaamira siisiida ku xiran waxa ay duubtay ayaan rabaa halkan inaan keeno mudana garsoore waad keeni kartaa garsoore muuqaalka waxaa inooga muuqda kaashi oo bursanaya abimayu bursasho oo keliya ugumuusan keenin wuu garaacay wuxuu doonuu ku sameeyey dabaquu saaray kadibna meesha ayuu ka tuuray sidaas ayuuna ku dhintay abimayu mudana garsoore waa run waxaana la tusay iyo fiideoga iyo caddeemaha intaba laakiin waxa la sheegaayo iyo dilka kaashi oo geystay wax iska galay habeeratee ma jiraan waana been abuur hadalkaas aamusa 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 mid kale ayaan rabaa inaadan su'aal maro garsoore kaashi oo ninka la yidhaahdo abamayu dabaq ka soo tuuraya fiideogan ma lagu arkay oo ma looga jeedaane hadalka hanoo laalaabin wax aad hayso noo soo bandhig mudan xeerale dabaqa xilligaas waxaa fuulay deefinaa beriyaa kaashi saddexdooda meeshaas ayay ku sugnaayeen marka sidee lagu xaqiijin karaa kaashi keligiis in uu ninka la yidhahdo abamayu dilo meesha ilaa saddex ayaa joogtay waxaa kaloo xaqiiqo ah kaashi oo abamayu daba cararayo inaan kaamirada annaga aan ka aragnay waana runtaas laakiin annaga muuqaalkaasi kama aan arag kaashi asagoo abamayu dabaqa ka soo tuuraayo tan kale annaga kaashi ma ku tilmaami karna dila maxaa yeelay dhammaanteen shaki oo keliya ayaan ka qaadnay mudana garsoore ninka la yidhahdo abamayu inuu dhintay waa xaqiiq laakiin ninka kaashiya inuu dilay xaqiiq maaha dhammaan markhaati iyo caddaymihii markii ay dhegaysatay maxkamadda waxay go'aan ku gaartay 2 maalmood kadib in laysku soo laabto
dilaagii dilay wiilkayga ayaa kiiska noogu guulaysan raba adigana halkan ayaad baancunuhu la fadhisaa war sideed rabtaa maxaadse ii qaban rabtaa ii sheeg qorshahaadase muxuu yahay kiiskaana sideed ugu guulaysanaysaa adiga kiiskan maba loo baahnaba inaad isku sii wareeriso aniga waxaan ku tusayaa dadka maxkamadda joogoo dhan inaan marin habaabiyo oo maskaxdoodao dhan aan rogo wiilkayga ninka dilay waxaan rabaa asigana in la dilo taasoo keliya ayaan doonaa taas wax weyn maaha adiga lacag ayaad leedahay lacagtana awood ayay leedahay haddaba waa inaad tustaa dadka awoodda lacagta ay leedahay ciddaad doonta iibso wax le ee tusa adiga waa bilaaban kartaa mudane xeer ilaaliya kiiska haddii aan guda galo ninkan 2 maalin maxkamadda wuxuu ku wareerinayay kiiskan beenta ah ee aanan jirin oo wuxuu leeyahay walaashay ayaa la dilay qofkii walaashay dilay ayaan ka aargutay anigana laakiin annaga waxaan samaynay baaritaan dheer xaafaddii u degnaayaan tagnay diriska ayaan soo waraysanay oo waxaan dhahnay ma jirtaa qoftaan la sheegayo balse waxaasoo dhan waa waxba kama jiraan diriskana waxay noo sheegeen qofta ninkan uu sheegay ee gangaa lagu magacaabo inaysan ahaynba qof jirta aamusa hala aamuso isdejiya kaale adiga maxaad ku hadlaysaane garsoore runta ayaan kuu sheegayaa ninkan gabadha uu sheegayo maba la dhalaninba gabar gangaala dhahana maba jirto gabadhan uu leeyahay waa aniga walaasheedana meesha maba joogto dood ayaan ka qabaa mudana garsoore ninkan arrimaha aan ku jirno iyo arrimaha hadda oo kale wax isla habeeraatee maaha garsoore aniga waxaan kuu hayaa markhaatiyaal kuu caddaynaya ninkan inaysan gabar la dhalan haddaad ii fasaxaysana maxkamadda ayaan soo saarayaa mudane garsoore ninkan hadda kor waa ii yimid si xunun ii garaacay aniga markuu i garaacayn wuxuu ilahaa walaasheed aawe waxa aan la yaabanaha waxay tahay gabar ma aysan la dhalanin muxuu ii garaacayay ninkan waxaan dhihi karaa runtii waa nin waalan mudana garsoore ninkan kaashi lagu magacaabo nin maskaxiisa ee fadhida maaha waa nin isku dhexayaacsan mararka qaar keligiisa isla hadlaayo aniga xataa waa la yaabay mudane garsoore aniga waxaaba la yaabi markiin arkiba ninkan barkiin camalaas qabaano marka saas darteed xirsi xijaabanba ka soo xirtino barkiinkiisa iyo bisaalimkiisa ma inay iga leexdaan garsoore gabar gangaal dhahay koleejkeena inay dhigatay iska daay weligeed xitaa codsi kama soo dhiiban balse wiilka abimayuul dhahay iskoolkeena muhiim ayuu ka ahaa been bay sheegayaan mudane garsoore arrintan waa arrin kulligood ay soo dhodhoobeen aniga ayaa markhaati caddayn halkan kugu keenayo waad soo saari kartaa garsoore kuwa aa ujeedid been looshin waa ku dheh war 5 kun haddii la siiyo nafsadadoo bay goynaan gabadhaas walaasheenna waa jirtaayaan ku dheh biyooraha walaaltinimada xataa adaa ii xirti maxaa lisaga indha tirayaa mudane garsoore waxaasoo dhan been waay ninkaasaana ka dambeeyey meesha fadhiyo beenloo waa isaa soo alifi sheekadaanoo dhan mudane garsoore mararka qaar gangaa anaga koolejka kii jirnay dadkanoo dhanna beenay sheegooyin aan ku dheh mudane garsoore aniga iyo gangaa waxaan ahayn dad iskuuleeja weliba isku fasal ayaan ahayn saaxiibana waan ahayn balse wiil la dhahayo abimayo ayay saaxiib la ahayd kadibna uur ayay qaaday arrintaasna aad iyo aad ayay ugula walasaneed aniga markay ii sheegtay kadib gabadha saaxiibtay maba arkin maalintaasna waxayd maalintii iigu dambeysay mudane garsoore aniga xataa waan hubaa gabar gangaal laho inay jirto haddii aan ka soo qaadno gabadhaas inaysan jirinba sababta meedkeeda loo helo maxay tahay ilaan qof aan jirin meedkiisa lama heli karo mudane garsoore maxkamadda waxaan ka codsanayaa kiiska mudane abimanyu in aanan laga herin oo weliba la sii dabagalo taas ayaan maxkamadda ka mudane garsoore annagu kiiska kama leexleexanayno caddeemahan aan hayno waxaan rabnaa maxkamadda dembiilaha qodobadiisa inay ku qaaddo mudane mushraa haddii aysan gangaa jirin meedka la helayaa waaye marwada hadalkeedana waa sax xeer ilaaliye si aan arrintan kugu xaqiijiyo haddii aad ii oggolaanayso askarigan waxaan jeclaa 2 kelmadood inaan weydiiyo isbatoore waxaan ku weydiinayaa
gabadha aad hesheen meedkeeda sideed ku ogaateen inay gabadhaas gangaa tahay meedkaas waxaa aqoonsaday kaashii iyo deefina sidee marka meedkaan arkayna ruuxantii wejigeeda waan aqoonsan weyn laakiin waxay noo sheegeen dharka ayaday xirad inay aqoonsadeen garsoore taas meel iigu qor adiga waad iska bixi kartaa waa mahadsantahay mudana garsoore haddii aad ii ogolaanayso deefina ayaan jeclaa laba kelmadood inaan weydiiyo waa weydii kartaa deefina waxaan rabaa inaan ku weydiiyo meedka la helay inuu gangaa yahay sida aad ku aqoonsatay run ahaantii dharka ay xirneed gangaa aniga ayaa hadiid ahaan u siiyey dharka ay xirneed adiga ayaa hadiid ahaan u siiyey soo maaha garsoore meeshii wahay anigana hadiyad kale ayaan ku hayayaa ges ila fiiri meeshaan deefina adiga ayaan kuu soo jeestay dharkan soo maaha dharka aad gangaa hadiid ahaanta u keentay mudane xeer ilaali dharkan suuqyada ayuu yaallaa 500 rubis ayaa la siiyaa 300 in ka badanna way qaateenoo magaalada ayuu ku jiraa hadda deefina adiga waxaan ku weydiinaa sida aad ku aqoonsatay meedka gangaa inay ayada tahay iyo in kale ilaan dharka wax ma caddayn kara oo keliya been ayay wadaa deefina been kelmad runa ilaa iyo hadda maysan sheegin maxkamadda been ma rabto ee waxay u baahan tahay caddayn saxa in la hor keeno mudane garsoore aniga waana waa dharkaas hadiid ahaan inaan ugu keenay horta dhar way isku ekaan karaan balse dadka bini'aadanka inay isku ekaadaan lagama yaabo anigana marar badan ayaan la kulma gangaa si fiican ayaan u aqaana mana laga yaabo qof kale inaan ku qaldo mudane garsoore maxkamadda waxaa looga bayahay gangaa inay imaato oo wax walboo caddeena ay noo kala sheegto aamusa kaale adiga wixii rabta maaska sheegay mudan xeer ilaaliya aniga ilaa iyo 3 ayaan tirinayaa gangaana albaabkaas ayay ka soo galaysaa ayadoo socoto caddeynta wadda wax walbana ayadaa noo caddaynaysaa 1 2 saddex awkaata mishraa sixirkii maad rabta inaad ku keenta gangaa sixirkaada uu burburay maya wax sixir la dhaho ma jiraan ee aniga ayaaba arrintan ugu talagalay sababtuna wax kale maaha adiga kaashii iyo gabadhan iyo inta maxkamadda joogtoo dhan waxaad wada sugayseen inay albaabkan ka soo gasho gangaa soo maaha adiga lamandhiino way ka soo galay waan ku dhahay aniga laakiin gangaa meeshaa ma imaanayso sababta aan ku dhahayna wax kale maaha meedka la haayo inay gangaa tahay cid og haba yaraatee ma jirto kulligiinna hadda waxaad wada sugayseen gangaa inay albaabkaas ka soo gasho mana aysan ka soo galin sababtoo ah ninkan iyo gabadhan qofta ay sheegayaan qof jirta maaha marka meedka la helay sidee lagu caddayn karaa inay gangaa tahay markii horeba shakhsi gangaala laho adduunkaa muusan saarneen garsoore ninkan sheekadiisu way dheer tahay waa waali fog maxkamaddu maahan inaad nagu sii daalisaan wakhti yuusan noogu lumin ninkan hala xukumo adiga ma amarna siinaya annaga ilaa iyo hadda caddaymo nagu filan ma hayno waxaan go'aan gaari karnaa kaashii hooyadiisa aabbihiisa markii halkaan la keeno markaas ayay wax walba caddaa karaan inta ka horayso dib ayaan iskugu soo laabanayna kaashi dadka maskaxda ayay kaa qasayaan waxayna rabaan ciqaabta ugu adag inay ku marsiiyaan dadkaas waxay doonaan ha sameeyaan waxay rabaan ha iska yidhaahdaan laakiin waxaan go'aan ku garanaya gabadha walaashee dadka dilay inaan soo saar har iyo habeenna waa u taagana taas adiga ha ii baqin kaashi hadalkayga si fiican u dhegayso wixii dooda aniga ayaa kuu jooga laakiin adiga waxaan kaa doonayaa buuq maxkamadda inaadan ku samaynin intaasoo keliya aan kaa rabaa abukaata mishraa aniga waxaan idiin diray waalidiinta kaashii in aad keentaan kadib ayaan go'aan gaari karnaa mudane jidka ayay ku soo jiraan aamusa maxaa dhacay meeshaan waa maxkamad annaga miyaad wax naga qarinaysaan garsoore kaashi gurigiisa ayaan tagay hooyadiis iyo aabbihiis guriga ma joogaan mana aqaano meelay aadeen
waa yaabanaha ilaa iyo hadda mudane garsoore waad u jeedaa ninkan waxaa la soo dhahay waalidiintiisa waa la la'aya waxaasoo dhanna waxaa ka dambeeyo mudane balwaan waxaana loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan leh sharciga in la hor keeno maxkamaddana waxaan ka codsanayaa ninkan inay xabsiga dhex dhigto maxaa kugu dhacayne see aan garsoore absolutely iga raali noqo midaanaan la yaabanayo oo waxaa la dhahay guriga waalidiinta maba joogaan way baxeen miya waalidii hore waali kalaa soo dhaaftay waa beentis ninkan haddii ay dhacdo qoyskaygain wax yaroo dhibaato ay soo garto waxaa barana bannaani suran inaysan ciidan ku noolaan kaashi isdeji go'aanka annaga ayaa iska leh garsoore halkii markhaati ugu muhiimsanaa ayaan rabaa inaan hortaada keeno haddii aad ii ogolaanayso waad keeni kartaa ninkan waa baqdeerkeeye fuul meesha magacaaga ii sheeg aniga magacayga miyaa rabtaa jumaana ayaa la yidhaahdaa ninkan akaashii aabbihiisna saaxiibbo qadiim ayaan ahayn siniin miniin ayaan isnaqaanin saniin maniin ma idhahde saniin maniin maxaad ula jeedaa ii sheeg bal saniin maniin waxaan ula jeedaa ninkan aabbihiis milanova janta taranta duwa ayuu geeriyooday maat waa dhintay adeer jumaana maxay taa beedinta laga sheegay sidee wax u jiraana horta run ahaantii ninkan aabbihiis saaxiibba ayaan ahayn dad derisana waan ahayn sanadku markuu ahaa 1932 ayuu aabbihiis geeriyooday aad iyo aad ayaan uga xumay wiilkay ganga soo kacna isaqoo kaala ganga isoo kaartay dhaqso geerida aabbihii dabadii markaan guriga ku soo laabanay waxaan u nimid akaashii oo jimbaarta aabbihi ku dulmeeraysanaya annagana uma aanan sheegi karin geerida aabbihi ku timid waana aan ka qarin adeerkay jumaana been ayuu sheegayaa mudane caddeemo been ayaan bartaan la isugu keenay abukaate qaylada waa inaad joojisaa go'aanka maxkamadda annaga ayaa gaarayno middeeda kale kaashiya caafimaadkiisa waa laga shakiya waa in takhtar loo diraa kadib ayaan go'aan gaari karnaa inta ka horaysa maxkamadda waynuu xihan tahay waadna iska bixi kartiin nabadii walideeda inaad barto halkaa u timid miya maya uma imaanin inaad caafimaad qabto inaad caddeey ayaan meeshan u imid adduunkan cid aan ka aaminaya ma jirto waa runtaa cid ku aaminaysa ma leh aniga ayaa laakiin kugu kalsoon waddo kaloo adiga kuu bannaan haba yaraatee ma jirto runtan kuu sheega aniga ma waalni dadkan waxay rabaan inay intii walaan misana caddeyn been ay iga sameeyaan intaba waan la socdaa waana ka warqabaa wax walba su'aalo ayaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aalahaas haddaad iga jawaabtana wax walba way iska caddaan doonaan bannaanka ayayna imaanayaan ee adiga isku day su'aal walbaan ku weydiisa sax ama bakshish lagu soo siiyey xaashaa lillah aniga bakshish leema siinin inin shaqadiisa wata ayaana shaqada ma bilownaa marka oo ma guda golnaa hawsha shaqadiisa dadta hore ninkan markii aad sheekaysateen maxaa kaaga soo baxay run ahaantii markii koowaad ee aan ninkan la kulmay waraysigan aan ka qaaday arrin la yaab leh ayaan ninkan ku arkay kadibna baaritaan dheeri ayaan sameeyey marka baaritaankaas natiijadii ka soo baxday ayaan rabaa inaan kula wadaago nala wadaag mii bannaan tahay su-aasha koowaad aan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay guriga aad degan tahay ee adiga ku nooshahay cuntada yaa kugu kariya inaan ogaada ayaan rabaa ana ku karsada maxaa dhacay sabab ee dadka kale kariskooda kuma kalsooni gacantaydan ku kalsoona gabadha walaashahay adiga kula degan cuntada miyaysan adiga kuu karinna maxaa dhacay kulajka dhigata raashin karisna fursad uma hayso okay ma xuma aabbaha muxuu qabtaana asaga qayluu qabtaa maalin kastaana igu qayliyaa dhib malaha kugu qayliyo waa nin weyn oo aabbaha mas-uulah wax camala miyuusan qabaninna maxay tahay sababta aabbay wax sooma baran haddana da'a soo wajahday xaguu ka shaqaynaa marka yaase shaqada siinaya okay mid kale ayaan rabaa inaan ku weydiiyo adiga walaasha gangaa xiriirka idinka dhexeeya waa noocee xiriir wacan ayuu ahaa balse maalmihii dambe walaashay xoogaa isbedel tartiib bas isdeji marka ugu horreysa su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo adiga walaasha xariga walaaltinimo ma kuu xiri jirtayna
haa maalmihii hore way i xiri jirtay maalmihii dambe laakiin anaa iska joojiyey sabab maranka xanaaqi go'aana waxaan ku gaaray fiyooraha walaaltinimo marnaba inaysan ii xirin ilan uqdadii hore igu taagneed ma go'aankaygina burburiyeen waan diidanaa si fiican aan kuu fahmay in mararka qaar shaqada ayaad ka timaadaa guriga markii aad timaado yaa waayo qofka adiga albaabka waxaas waa su'aala marka guriga waa la dhooban yahay albaabka furan yaa xira marka okay ka gudub midaas mid kalaan rabaa inaan ku weydiiyo dabcan adigoo daalan ayaa shaqada ka soo baxdaa guriga ayaa timaadaa walaasha ama hooyada yuu yahay qofka adiga biyaha kuu keena markaas annaga hooyo iyo walaalaha ma dhibna moogtahay wax walba waa aan ognahay hadda way noo cad yihiin garsoore ninkan dadka uu ka sheekeynaya waa mala awaal iyo khayaali isagoo iska dhaadhiciyay dadka uu ka hadlayo dunidan aan ku noolnahay maba ay ku noola oo waa dad waa hore geeriyooday aamusa dad uma joogo maxaad ka wadaa waanaa ku fahansiinaya garsoore waxaan ula jeedo ninkan markii aan su'aalo badan weydiiyey waxaa noo soo baxday waxyaabo badan oo annaga aan ku wareersanayn maskaxdiisa ayuu ninkan horta ka adeegtaa ismoodsiis is-aragsiis ayaa la dhahaa ninkan waxa uu inoo caddeeyey albaabka markuu soo galayo inuu albaabka furan yahay oo cidi aysan ka furin cuntada marka ay noqoto inuu isaga cunnada karsado biyaha inuu isaga soo qaato waxaasoo dhan isaga ayaa qabsada maskaxdiisa yaraantiisa ayaa la qabsatay inay faamilkiisa la joogaan inay mar walba u muuqato la qabsiga uu arrintaasi la qabsaday waxa ay sababtay in wakhti kasta uu u maleeyo waalidiintiisa inay la joogaan kama dayaan wakhtiga laga luminin ninkan dhimirka ayuu laayahay marka xukunkiisa soo gabagabay adaa dhimirka lacag kula laaluush qaatana waa taawaya kaashi aamus dood ayaan ka qabaa mudana garsoore ninkan ditoornimadiisa ayaaba shaki igaga jira inuu ditoor faalsi yahay ayaaba laga yaabaabo maya raalli ah waa uu kaatay booskaada ku noqo adigana balwan naga fariiso wada adiga waa sii wada kartaa waad mahadsan tahay horta ninkan cudurka uu qabo haddii afafka qalaadaan ka soo bedelo oo af soomaali ka dhiga baranoya ayaa la yidhaahdaa waa waali familkiisa muuqaalka uu ka arkayo amaba dadka uu jecel yahay haddii dhibaato loo geysto cid allaali cidda uga shakiyo kow ayuu ka siinayaa oo dunida ayuu ka masaafurinayaa abumayuuna sidaa darteed ayuu u dilay garsoore waad u jeeddaa caddeemihii oo dhan hortaada ayaa keenay intaan wixii ka dambaysa in maxkamadda la sijiido waa laga wanaagsan yahay ninkan waxaan rabnaa xukunkiisa in la marsiiyo dood ayaan ka qabaa mudana garsoore dood ayaan ka qabaa ilaa ay hadda mudana kaashi inuu dilay abamayu wax caddeyna looma haayo abukaata ukaada adiga biswa waa ku dhammaatay imise lacaga barnoyaa qaadatay xayla qaatamaya aniga ee shaqadeeda keliya ayaan gutay kaashi arrinkaa maxaa ka leedahay haa abamayu anigaa dilay dabaqna waan ka soo tuuray sababtoo gabadha walaashaeyo waxyaabahan ku sameeyey laakiin qalad baan galay ninkaas dilkiisa waan ku qaldanaa walaashay waxa dilay qof kale maahan ee waa ninkan hortiina fadhiya isagaa loo baahan inaan dilo walaalkaashi aniga meeshaan wax kale uma imaan waxaan rabaa arrin sir inaan kuu sheego wax kale maana sirtaas iga dhegayso hadda ka hor gabadha walaashaada wasiirka ayaa u wacay wuxuuna yidhi ii imaad gurigaygan igu imow guriga markay ugu imaadana qayle ayaa maqlay albaabkamka istaagay qaylidaha maxaytaa isdhax ayaan waxaan arkay walaashaada oo waxyaaba farxum oo ku samaynaya wasiirka kadibna waa uu dilay arrintan aan kuu sheegaayo waa sir sirtan haddii ay baxdan aniga waa ii dhammaanaysaa ilmahaygan agoon ayay naqanayaan waa ku baryaa kaashiya arrintaas sir hanu ahaato oo kaale aniga miyaadba ii caga juglaynaysaa oo aad rabtaa inaad i disho waan ku dilayaa haa waxaad tahay khiyaanana kuma dhaafayo meel walbaad gashan waxaa baranaya inaan ka sashaa aamusa kaale aniga miyaadba rabtaa inaad nafta idhaabsiiso adiga gabarh kulama dhalanin haddii ay kula dhalan laheed dilka aan gabadhaas dilo dadweynahoo dhan dhagaha ay faraha gasha lahaayeen kaale xaarayo kuma daynay kaale war qabta qabta waan dilaya war iisi dayga maxaa samaynaysaa qabta ninka kaashi ninka xabadda ku dhufan बम बम भोले भोले काशी hay maxaa kugu dhacani waa soo laabana wax yar la ii kaadaadi kaala bal wax cunma ka hore ukaadi intaad lasanka ku fee
kaashi aan socdaa kuta ku dilay maxaa jira dhib maa jiraa dukaadi bal ay dee qofka faayo ma soo dhamaysan ahaa askari gabasaar kaashi hoy kaashi fiiriya maanta saaxiibka isqurux badan yahay waa soo labista ka warane wax kale dharkaan qurux lagu khasaaray anuu saaxiibka see dhabarka iga toogata kaale oo weliba aad iga dhigto canug baarnooyo ku dhacday maya adi waxaas ina u baxdayd maba loo baahna seewa yaa qadi hooyayaab mandarkam ka soo noqday ha hadda waa ka soo laabtaan gurigeena joogaan waxbaa ka walwalin adiga waayahay mid ma ku weydiiyaa oo miiga jawaabaysaa ha maya haddii ku dhaw xataa waa i weydiiye lead dhiigga waxaan ku weydiinaa hooyo aabbe iyo gangaa isha ma soo saartay ma soo aragtay xaalkooda siduu ahaa maxaa ku hadlaysaa adig seewaya anaa soo arkay waa se kaa weydiinaa maxaa dhacay adig kaale baban hadalkiisa le amaa soo qaadatay ii sheeg bal see u soo raaca laakiin waxaad ii sheegtaa hooyo see u taalle ya maxaa waxda sheekadan ay maya waxaan rabaa inaan ogaado nooc ii sheeg see u taalle maxaa la dhahaa hooyadaa qof qurux badan ahayd timaheedana way dheeraayeen laakiin ilkeeda iyo sanka ka waran siday kula muuqdeen marka arkaysa hooyo maxaa waay haddana sheekadan ii sheeg bal qofka markuu daa noqdo waxaan rabaa inaan ogaado waad la socotaa qofka markuu daa noqdo ilkaha inay ka daadanayaan dhiigga hooyada ilkaha kama aysan daadan hannabaya walaalkii ani wax walba runta ah waa kuu sheega aan ku dhahay walaashaa gangaane sawirkeeda waa kanahay joornaalka lagu soo qori ma ujeedido si fiican u fiirsabe xabsiga ma igu wala rabtaa gabadhan walaashay maaha ee waa dibinaa indhaha maa la'dahay dibinaa maahan yaqay gangaa waaye 3 maalin ka hor ana ii imaadi wax walbana waa ii sheegtay waxaana ii tidhi abimanyuu inaa isguursinaan rabaa arrintaasaan kuugu imaadi inaan kuu sheego runaatii maanta guuldarada ayaanba ku faraxsanaa weligay anoo guuldareys oo faraxsan maadaama guuldaradaada guul ay noo soo hayso waa inaan xaflad dhiganaa oo xafladaan dhiganaynaa kaala triisho maxaa u taagantee kaalna la farax soo fadhiiso halkaan imaad waa faraxsannaa maanta mujadiyo guuldaradaan ku faraxsannaa cabitaankaa la wada cabay jees aniga inaan guulaysto ma u dareemayo guuldaraan dareemaya laakiin guuldaro sidee aabbahay kaashi arrintiisa ayaan ka murugsanahay hadalkayga si fiican u dhegayso marka aad rabto in aad guulaysto waxaa loo baahan yahay qof walan inaad hormuud ka dhigato laakiin kaashii qof waala muusan ahayn haddaba muxuu ahaa aabbahay oo ninkaas si dhow miyaad u jeclaatay deefina walaalay macaani jecel iyo sheekadiisa waa inaad ka qaras baxdaa sheekadan waa ogtaa inaan soo dhoodhooblay haddii aad sheekadaas keentana annaga ayaa baxargelin marka waxaa lagaa rabaa inaad ka baxdo waxaas ma ogtaa wax yar haddii lagaa shaki lahay intaynu dhan baxar ayaan geli lahayn ma la socotiin naxariista aan kaashi agtiisa ka helay cid kale inaysan i dareensiinin waana dareemi waayo xilli aan asaga jaceyl u qaaday waayo abay hadda maxaa qaban kartaa waad la socotaa ninkaas xabsidaayna lagu xukumo maxaan samaynaynaa marka anigaa xabsiga ka soo saaraayo waxaana diyaar u ah dhakhtarka ugu wanaagsan inaan u geeyo abbaayo macquul maan waxaas inaad samaysid tan kale ma la socotaa ninkaas haduugaad waxa aad ku samaysay wuxuu kugu samayn kara bal ka fikir anigaa diyaar u ah xaqiiqda inaan u sheego wuuna i cafin doonaa kaashi qof ayaa raba inuu adigu kula kulmo
kaashii sidee tahay sidee tahay sidaanaan ahay qof waalan weliba adigana waad la socota soo maha igaraal noqo kaashii wax badanaan isku day naftaada inaan badbaadiyo waan ku jeclaaday weliba si xad daafa maxaa sidaan ii yeeshay nolol wanaagsan ayaan isaga jiray laakiin adigaa nolosheeda baabiiya sabab maxaa nolosheeda u baabiisay sabab gobolka banaaris markaan imaanaya hadaf ayaan u imaaday qofka ugu horeeyo ee anfacan adiga u noqday waraysi ani maba gaarinaya adiga waxaa taa qofka keliya oo banaaris igu soo wareejin kara qofkan waa aabbahe aabbe shaqada xawli ahayd maanta isla maalintaasaan ogaaday maskaxda in lagaaga jiro markaas kadibna waxaan go'aansaday inaad noqoto qofka qorshahayga ii fulin lahaa maskaxda ayaana kaa degay wax walboo rabana waan kaa samaysan jiray waxaan kaloo ogaaday walaasha inaad si xad dhaaf u jeceshahay saayidaa u jeceshaha soo maaha gangaa gangaa waa walaashay si xad dhaafna u jeclahay walaasha ayaan kuu isticmaalay markaas kadibna shayga noloshaada ugu qaalisanaa ayaan kaala wareegay gabadha shuruutii la dhaho oo aan ku dhahay gangaa saaxiibadeeda waay run ahaantii walaashay ayay ahayd laakiin abay maxaad iiga baahan tahay oo aan kuu sameeyaa keliya waxaan kaa rabaa sheeko inaad ka sheekayso weliba sheekadan aniga kuu sheego markaas kadibna walaashay waxay kaaga sheekaysa sheeko aan aniga abimaayo iyo gangaa ka sameeyey adigana waad aamini weysay kadibna maxkamadda ayaan kuu diray hay maruu soo hadal shahaado aroos ayaan rabaa inaad ii samayso keen wiilka magaciisii sheeg be hal mar abimaayo bandhe adigane gangaa jodri gangaa jodri okay si aad arrintaas u aaminta darteed aniga qorshe kale ayaan sameeyey dad ayaana balamiyey si ay labadeennoo wada joogan oo xabadeeyaan sidoo kale rangiilaana waan la kulmay idhegaysa rangiila maalinba maalinta ka dambaysa kaashiya caafimaadkiisa wuu ka sii daraya mararka qaar wuu iska xanaaqa qofka ka soo horjeedana inuu dilo ayaa macquul ah waad aragta babiina iyo asxaabtii siduu u garaacay annaga waa inaan ka taxadirnaa sababtoo ah waxaa macquul qof inuu kow ka siiyo taasna dhib ayay nagu tahay taas see looga hortagi karaa marka ii sheeg waxaan kaaga baahanaa sidaan aniga ku dhaha oo keliya inaad samaysan adiga iyo asxaabtaada haddii kale dhibaataa dhacayso anigana dhakhtarkiisa ayaa mar walba la sheekaystaa waxaad nafartaan samaynaynaa noo sheeg lebis miidka walaashay gangaa muxuu ahaa xaggees ka keentay run ahaantii waxa waaye lacagta sayila waxaan u baahanahay meed aan dad lahayn inaad ii keento mid dad aan lahayn ii keena sideen kuu keena arrintaas inaad ka fikirta adiga ayay shaqadaada tahay aniga waxaan u baahanahay gabar dhimatay oo aan dad lahayn inaad ii keento gabaryahay shaqada way weyn tahay lacagtana way yar tahay intaan waa horumaris shaqada markaad qabataad inta kale helaysaa tan kale dharkaa meydku gelleed anigaa kuu soo diri doono walaashaa gangaa dharkaan u keenay babiina ayaan u dhiibay xilliga maxkamadda la joogana dadka adiga kugu markhaati furaayo dhan runta ayay ka hadlaayeen qof maskiinoo daacada ayaa dilaa ka dhigtay maxaa kugu kalifay ii sheeg maxaad u samaysa arrinkan aargudsi balwaan ayaa rabay inaan ka aargudsado cadgoosi noocee ah ninkaas iyo aabbahay ganacsi ay shirka ku ahaayeen si uu hantidoo dhan gacanta ugu dhigo ayuu aabbahay kow uga siiyey anigana xilligaas 8 sano ayaan jiray walaalkay xataa wuu dilay
meesha way iskaga tageen 12 sano kadibna waxaan u soo laabtay aabbahay ninka dilay inaan ka cadgoosto dadka ay tusiisay iyo meelihii aan arkayo dhan ma been bay ahaayeen oo waxaad soo aliftay ahayn miya kaashi wax walba aniga ayaa qorsheeyey waxaad arkaysoo dhanna been ayay ahaayeen balwaan iyo wiilkiisana waxaan ugu talagalay inay u dhintaan aabbahay iyo walaalkay sida ay u dhinteen maxkamadda adiga iyo balwaan markii aad isku dagaasheen si qarsoodiya ayaan bistooladda gacanta kuugu geliyey سيدايا لسه دواني قلت لي انا كمان بيل عيار في عناد عيارتي كاشي waan ku jeclaaday adigana dana gooniyaha ayaad igu wadatay jacaylkan kuu qaado waxaad ku badashay inaad gacan kudhiriga iga dhigto anigoo masaakiina weliba maya jacaylkaba noocaan hadduu isku bedelo dadkao dhan way ka aamin baxayaan kaashi aniga waan ku jeclahay weliba taxad dhaaf ayaan kuu jeclahay xilligaasna waan ku jeclaa haddana waan ku jeclahay weligayna waan ku war jeclaa beentay ka dhaaf maya carruurna ma ha igu ciyaarin ma waxay kula tahay beentaada inaan aaminayo maya kaashi beenkuu ma sheegaayo ma waxay kula tahay ilintaan been tahay inaan ku calool jileecayo lagama yaabo waxaad tahay qof been badan mana kaa dhegaysanaya warkaad wado maya beenkuu ma sheegaa waa runta gacalis inaad aaminto isku day waan ku aamina bis yaqay ha igu oynin ilintaada agteeda qiimay ka leedahay run ahaantii waana ku jeclahay ma ogtaa dad fara badan ayaan ilintooda arkay oo weliba horteeda ku weynaa laakiin uma aanan calool jilcin laakiin ilintaada agteeda way ku weyn tahay ma garan kartaa sababta waan ku jeclaa mana kaa maarmo isa oynin ha oynin aniga inaan ku jeclaa soo moogid isha nolosheeda lagama yaabo inaan meel cidla aan kaaga tago sidaan kuu jeclaa may jecesha ii sheeg mar laba isma dhihin waqtiga wuu idinka hilinaa labadiinna mala socotaa hooyo aabbe iyo abbaayo inaad adiga iga fogaysay sidaasay tahay waxaan rabaa inta nolosheeda ka dhiman inaad farxad igula noolaato ma raba adduunkan intaan sii joogo keliga inaan noolaado laakiin nasiibkani ii ogolaanan inaan kula noolaado maya kaashi sidaasaa dhihin nasiibkii miyaad ka hor imaan kartaa adiga maya sidaasaa dhihin kaashi nasiibka way ka diiday aniga nasiibkii ma ka ogolo nasiibkaan ogolayn nasiibkaan ogolayn nasiibkaan ogolayn inaan wada noolaano ma ogola nasiibka cid ka hor imaan kartana ma laha aniga ma aqaan ninkan waxa ku dhacay mar walba qaantadana dhulka ku xoqaa hooyo u sheegaya raashinkay karinaysiisan ku daahin aabbana u sheegiyuusan igu qaylin walaashay xoogaa iyadan waxbarashadeedan rabaa inaan xoogga saara mugtaa inaan la tacaalo macnaa saan warkaan u wado dhan madaxa igu xanaano kowdhe madaxa ii reereekaa leh xididka qaba xididka haa allah ileh waa haysaa wareeji beellaad tahay anigu familkayga waa jeclaha mugtahay laakiin adan ku ta'kiidiha markaan adaan ku raba beello xididka waa wada filimkan waxaa lagu tarjumay studio Famproj Mogadishu حكاسي دماسي يقول سلام في بقاقيا
एक चुटकी रोजाना तुम हंसी